halkan oo ah xarunta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland maanta waxaa lagu qabtay munaasabad kooban oo lagu wareejinayay qalab loogu talagalay wasaaradaha deegaanka, xanaanada xoolaha iyo horumarinta beeraha Soomaaliland. qalabkan oo qayb ka ah mashruuca barwaaqo oo wasaarado iyo hay'ado dhowr ah la shaqeeya waxaa wareejintiisii goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland, agaasimayaasha guud ee wasaaradaha deegaanka iyo qorsheynta qaranka iyo mas'uuliyiin ka socday mashruuca barwaaqo. ugu horeyntii waxaa halkaas ka hadlay isla markaasna faahfaahin ka bixiyey qalabkan lagu wareejinayo wasaaradaha beeraha, deegaanka iyo sidoo kale xanaanada xoolaha Soomaaliland. Cabdiqaadir Maxamed Guuleed oo ku hadlayay afka mashruuca barwaaqo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Mustafa Cumar Faarax. runtii mashruucan barwaaqo wuxuu hadda dalka ka socdaa muddo sanad ku dhow. waxa uu hore uga horeeyay oo isaguna soo dhamaaday mashruucii Biyoole. waxaa hore uga soo horreeyay oo isaguna soo dhamaaday pilotkii oo walba la odhan jiray. barwaaqo runtii labada mashruuc ka horreeyay successfulkooda iyo hirgelintoodii oo lagu guuleystay darteed ayuu mashruuca 19 milyan dawladda Soomaaliland ay ku daaqday bangiga adduunka. waan uga mahadnaqanaa iyagana. innaguna waxaan rabnaa inaynu dhammaan resource-kaasi laynagu wareejinayo ay cagaftu ka mid tahay, ay gaadiidka wasaaradda biyuhu uu ka mid yahay, ay ka mid yahay qalabka caanaha lagu runtii daryeelo ee wasaaradda xanaanada xooluhu leedahay, iyo qalabka kale ee beeraha hadday tahay tuumbooyinkii iyo hadday tahay geomembrane plastic sheetskii oo wasaaradda beeruhuna ay leedahayna aan rabno in qaranka iyo dadweynuhuba ay sidaa loogu talagalay uga faa'iidaystaan una daryeelaan ilaalintooda. maanta waxaynu u fadhinaa in soo gaadhay qalab runtii wasaaradahaas ay khuseysana muhiim u ah dadka ay gaari doonto iyo adeega loogu samayn doonana ay baahi weyn u qabaan. waayo wax kasta waxaa keenta baahi marka hore. baahidaas laga jawaabaa isku dubaridkeedii iyo arrimahaasna waxaa aad uga shaqeeyay wasaaradda qorsheynta iyo mashruuca barwaaqo. wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolahana iyo dhowr wasaaradood oo wada shaqeyn arrimo khuseeya deegaanka iyo beeraha way jiraan oo badan. maaha waa bilowgii maaha dhammaadkii qorshayaal badan oo kale aan soo wadnaa jiran ka wada shaqeyno 3 wasaaradood halkan joogay iyo kuwa kaleba. marka maanta waxaan wareejinaynaa 3 cagaf oo noocoodu yahay nooc aad u wanaagsan, la qiimeeyay, la isla gartay oo ku wareejin doona wasaaradda deegaanka oo halkan inala jooga agaasimihii guud saaxiibkay. waxaa kaloo inala fadhiyay ku wareejin doonaa wasaaradda beeraha irrigation systemkii oo dhan oo runtii arkaan oo qalab aad u muhiim ah. waxaa inala jooga wasiirkeenii habane isna ka wakiilay wasaaraddii beeraha, wasaaraddii xoolaha oo inala joogtaan ku wareejin doona iyadana qalab gaar ah oo loo soo iibiyo oo caanaha iyo qaabka loo kaydiyay iyo hygiene-keedii waxeedii oo dhan wata. markaas taasaynu maanta u nimi wareejintiina waxaan rabaynaa inay imika inoo dhacdo. ugu dambeyntii waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasna qalabkaasi la wareegay una mahad celiyey mashruuca barwaaqo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Habane, agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland mudane Maxamed Cabdilaahi Ducaale, iyo sidoo kale Ibraahim Cumar Cismaan oo ku hadlayay afka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. horumarku wuxuu yimaadaa marka la isku tiirsanaado ka ummad ahaan iyo ka qaran ahaan iyo ka qorshe ahaanba loo yeesho in dalka iyo dadka labadaba wax loo qabto. falilaahi alxamdu. mashruucan barwaaqo in badan buu soo socday, muddo badan buu soo socday. waana wasaaradda qorsheynta weyna ku guuleysatay, weyna dhaqaajisay sidii uu ugu qorshaysay World Bank iyo si ka sareysa labadaba way uga howlgashay. annagana guddoonka maanta maxaa haday na soo gaadhay ka wasaarad beer ahaan ilaahay ka sokow waxaa juhdigaa geliyey wasaaradda qorsheynta iyo tiimka barwaaqo iyo World Bankaba. annagana waxaan mas-uuliyad aanu qaadi doonaa in adeeg qalabkaas uu gaari doono dadkii loogu talagalay si fiican oo wanaagsanna aan u qaybin doono biidni illaahi tacaala. mar kasta waxaan leeyahay qaran wuxuu horumaraa oo uu tallaabsadaa marka laysku duuban yahay, qaranku isku duuban yahay, hal mid leeyahay, vision iyo mission aragti arrowga isku meel u jeedo. haddiise la kala jeedsado barwaaqadaas iyo nabadda iyo waxaasoo dhanba way naga kala daadsamaysaa biidni illaahi. ummaddana waxaan leeyahay inakoo mida ayuu horumarku inoogu jiraa. annagu wasaarad ahaan maanta waxaanu guddoomaynaa
runtii hadiyad aad iyo aad u qaaliya oo dalkana wax badan u taraysa waa saddexda cagaf halka ka muuqda oo baahi badan lagu qabay arrimaha deegaanka maadaama wasaaraddan u xil saarantay ilaalinta deegaanka gaar ahaan markaanu ka shaqeyno arrimaha seerayaasha oo dhulka ugu waaweyn ee dhulkeenu xoolo daaqaana dhibaatooyin badan oo xagga nabaad guurka dalkeenu ka jiro arrimo fara badan oo runtii baahi badan lagu qabay hawshan nagala qaban doontaa waxaan kula mahadnaqaynaa mashruuca barwaaqo oo runtii nimo dhalinyaro firfircoon ay joogaan saaka halka waxaan u joognaa inaan la wareegno ka wasaaradda annaga xanaana xoolahaan iyo horumarinta reer miyiga qalab caanaha ama value chainka waxaa la yidhaha milk value chainka wax weyn ka taraya oo hygiene-kiisa oo had iyo jeer markaa seminaarada la bixiyo traininada kitkaana loo raaciyo meeshii lagu qabto oo insha Allah dhawaan markaan traininada qabanno aan iyagana u raacin doono dadkii ku xaq lahaa ee kala joogay saydadkii kala duwanaa ee horeba u soo qiimeynay Saciid Cilmiye Cabdi Cumar Jibriil warbaahinta qaranka xarunta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada